ciidanka xoogga dalkeena gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyeen tuulooyin hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan oo maanta bilowday ayaa waxaa si wadajir ah u hogaaminayay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Sheekh Abuubakar iyo taliyayaasha ururada 144 iyo 145 ee guutada 14 Oktoobar. Howlgalkan ayaa intii uu socday waxaa suurto gashay in laga sifeeyo kooxaha argagixisada ee wili ku dhumaalaysanaya tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Sheekh Abuubakar oo furimaha hore ee dagaalka warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu yiri: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. صدق الله العظيم. markuu bad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ku mahadinaynaa dad islaam ah naga dhigo ciidanka xoog dalka Soomaaliya nagu diray marka xigtana nabadgelyo iyo caafimaad la siiyay. marka xigto waxaan u mahadcelinayaa taliyayaasha ururada 144 iyo 145 ee libaaxida guutada 4 Oktoobar ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo saaka si wadajir ah uga howlgalay deegaano hoostago Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo kala ah Buule Alundi, Malable, Baay, Buulo Dhuruw. intaas deegaan ayaa laga howlgalay cadawga khawaarijta al-Habaab wax ka joogo ilaa abuura ma lahan. ummadda Soomaaliyeed waxay ku cabsi gelinayaan barabagaan iyo cabsi gelin gaar ah, laakiin gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada Janaale gobolka Shabeellaha Hoose waxaa xoreeyay oo mar walba shacabka Soomaaliyeed garab taagan guutada 4 Oktoobar gaar ahaan ururada 144 oo tali ururka yahay saaxiibkay taliye Mustafa iyo ururka 145 oo taliye ka yahay taliye Sheekh Yuusuf. asagana waxaan leenahay taliyaal waa maasantihiin, waxaad u dhaarateen shacabka Soomaaliyeed in amnigooda la sugo, waxaad u dhaarateen diinta islaamka dadkan ku soo duulay in la dagaalantaan, waxaad u dhaarateen in deegaanada Soomaalida degantaa aan ka difaacdaan khawaarijta al-Habaab. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meel kasta ay joogaan. saakay meelihii howlgallada aan ku aadnana wax joogo oo ilaah abuuray cadow ah ma jirin. shacabka Soomaaliyeed ku sugnaay si nabadgelyaha ayaan nadiifintii iyo burburintii u soo sameynay. falillahi alhamdu wal minna. waxaan leenahay cadowga Soomaaliyeed saa ula dagaalamaysan oo idinkaga mahadcelinaynaa, sida dhaarta aad dhaarateen aad uga dhabayseen oo idinkaga mahadcelinaynaa. sidaas oo kale waxaan rajeynaynaa insha Allah taala howlgalka dhawaan bilaabanaya inaad qaybtiin ka qaadataan. waxaan rabnaa deegaanadan Shabeellaha Hoose ee ka istaan cadowga farakutiriska ah sidoo uu dhaqsiyaha badan la xoreeyay. aad ama saytan billahi tawfiiq.